taliyaha qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka General Ahmed Maxamed Cali Sow General Trediso saraakiil ka tirsan qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale saraakiil ka kala tirsan ciidamada booliska dowlad goboleedyada Hirshabelle iyo Galmudug ayaa waxay faahfaahin ay ka bixiyeen halka ay marayso nabadeynta beelo walaalaha oo dagaalo ay ku dhaxmareen deegaano ka tirsan Hiiraan dhamaadkii bishii December ee sanadkii dhamaaday 2018 kadib shir jaraa'id oo si wada jir ah ugu qabteen saraakiishu deegaanka Maqas oo kamid ah deegaanada hoosaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan halkaas oo ay saraakiishu ay kula kulmeen odayaasha dhaqanka mid kamid ah beelaha dagaalamay taliyaha qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka General Trediso ayaa ugu horeyn ka hadlay halka ay marayso nabadeynta labada beelood oo maalmihii ugu dambeeyay ka wadeen deegaanadaasi waxaana uu sheegay taliyuhu in waxgaradka mid kamid ah beelaha dagaalamay ay u hoggaansameen nabadda iyo in xabajoojin la kala dhex dhigo inkastoo waxgaradka beesha kalena ay horay uga baaqeen xabajoojin nabadeed balse waqtigii lagu balansanaa in la is horkeeno waxgaradka labada beel si ay wadajir xabajoojin nabadeed ugu wada baaqaan balse aan lagu guuleysan in ay kulmaan waxgaradka labada beelood si ay wadajir ugu kala saacidaan xabajoojin nabadeed oo ka dhaqan gasha labada beel ee dirto ay dhex martay inay imaan waayeen waxgaradka mid kamid ah beelaha dagaalamay waa kan taliyaha oo ka waramaya arrimahaasi isla markaana ku baaqay in waxgaradka labada beel ay mar walba u hoggaansamaan nabadda waxaan rabnaa inaan halkan uga hadlo maanta hawshii nabadeed aan ku jirnay ee beelaha walaalaha ee maxaan ku raahdaa dagaal ku dhex maray halkan oo muddo hadda aan soo wadno wax badan ciidamada qalabka sida ay u jiifeen banaanadan iyo maxaan ku raahdaa geedaha hoostooda sidii nabad loo heli lahaa marka hore waxaan u mahadcelinayaa nabadoonnada labada beelood sida nabadoonnada beesha Cayrona ajiibay iyo nabadoonnada beesha kale Xawaadle oo iyagana horey baaq u jeediyay balse aan weli dhameystirin baaqay hore u jeediyeen sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa siyaasiyiinta labada beelood waxaan u mahadcelinayaa ciidamada qalabka sida dhowr iyo 10 habeen geedaha u hoos jiifay sidii labada beelood ay nabad ugu wada noolaan lahaayeen beelaha halkan ku dagaalamay dagaalku halkan ku dhex maray nabadeyntooda iyo islaaxooda aan ku dhex jirnay runtii beesha hadda nala joogta odayaasheeda dhaqanka muddo 5 maalmood ay nagu soo noqonayeen u yeereynay noqonayeen inagoo la in beeshi kale dhaqankeed taleefano badan aan kula xiriirnay nabadda ma diidana iyagana oo horey u baaqeen laakiin waxaan leenahay waa aad nooga soo daahdeen culays ayaa idinka muuqdo culayskaas waxaan idin lahayn nabadda u soo degdege yaan aakhira darrada loo degdegin oo aakhiradayna yaa haluminin dadku iyaga wada hadlaayo goob walba ay ku wada hadlaan geedkii rabaan isla tagaano magaaladay rabaan isla tagaano muhiim waxa ah in la is ajiibo xabad joojinta shalay aad ku dhawaaqdeen iyaguna ay geeskooda uga dhawaaqeen inaad inta timaadaan idinkoo midaysan aad haddana ku wada dhawaaqdaan ayaan idinka warsugaynay laakiin waa idin weynay fadlan waxaan idinka codsanaynaa inaad timaadaan dowladda federaalka iyo isteedyada iyo ummadda Soomaaliyeed ee islaamkana waxaan u sheegaynaa labadii beelood beel kamida waana ajiibtay way noo timid beeshu kalena inkastoo naga dhaga adkeeytay haddana kama anquusan inaan nabad ka doono waana ka doonaynaa waxaan leenahay iyagana fadlan ilaahay inta ka baqdaan na ajiiba waxba anaga siyaasad kama rabno meesha labada duub ee ugaasyadeena sharafta badan waxaan leeyahay dadkan hala soo kala dhex galo sidoo kale saraakiil ka tirsan qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka iyo saraakiil ka kala tirsan ciidamada booliska dowlad goboleedyada Hirshabelle iyo Galmudug ayaa u mahadceliyay odayaashii waxgaradka beesha aqbashay xabajoojinta nabadeed kuwa kalena ugu baaqay inay aqbalaan xabajoojin nabadeed oo kala dhex dhiga labada beelood ciidamada qalabka sida ciidanka qaybta 27aad ciidanka qaybta 27aad kuwa Galmudug kuwa Hirshabelle ciidamadaas wanta oo iska kaashanayo inay amniga ka wada qayb qaataan dhamaantood ilaahay wuxuu noo suurta galiyay inaan mataqaanada meel fiican ay noo marayso nabadii waxaan ku guuleysanay taanahay ciidamadii halka yimid inaan joojino xabadii dhacaysay oo halka ka dhacaysay inaan joojino oo aan kala dhex tagno labadii ciidan alxamdulillah waxaan haddana dalbanay odayaashii labada karab beesha Xawaadle iyo odayaashii Cayr waxaan noo yimid odayaashii beesha Cayr oo u taagan nabadii waxaan u cidirnay ilaa haddana aan laanahay
odayaashii beesha xawaadle odayaasha labada dhinac oo ku dagaalamaya halkan oo ayagana biryahan aan wada hadal siino aan raadihayno rajayhaynay inay haddana hortaagan yihiin odayaashii ka soo jeeday dhinaca kale oo beesha ceyr inay hortaagan yihiin diyaarna ay u yihiin nabadda waxaa kaloon leeyahay odayaashii kale oo dhinaca kale oo beesha xawaadlana ayagana waxaan leenahay inay noo yimaadeen ka codsanaynaa waxaan uga baaqaynaa inay u yimaadeen odayaasha kale qaar ka mid a odayaashii waxgaradka ah mid ka mid ah beelaha dagaalamay islamarkaana aqbalay xabad joojinta nabadeed ayaa sheegay in mar walba ay diyaar u yihiin in xabadda la joojiyo. waxaan diyaar u nahay nabadda walaalahanna waxaan leenahay sida aan nabadda u doonayno u soo doona aan isu nimaadno gogolna aan ku wada hadalno soo dhowaada waxaan diyaar u nahay nabad. waxaan leenahay haddaan nahay beelweynta cayr ee maanta halkaan taagan waxaan dhambaal nabadeed u diraynaa walaalaha iyo beesha xawaadle muddo asbuuc ayaan ku soo noqnoqonaynay waxaan leenahay si dhaqsiya leh nabadda gacmaha noola qabta oo na soo gaara. dhinaca kale jenaraal Tiridiso taliyaha qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa digniin adag u jeediyay shakhsiyaadka wata astaanta qaranka oo sheegay inay ka shaqeynayaan kala geynta waxgaradka labada beel ee dagaalamay. waxaan leeyahay nimanka dadka qaar ee arrintan ku dhex jira ama shabaab ha ahaado ama shakhsiyaad meelaha joogo oo darajadii qaranku siiyay qabiil u adeegsanaya ha ahaadee waxaan idin leeyahay ka dhex baxaan idin leeyahay waan naqaanaa hadduu ilaahay yiraahdo dukumiintigoodana waa qornay haddana waa qoraynaa shakhsi darajo ciidan wata ama garaado wata oo meelaha dadka buufinaya ee odayaasha dhaqanka maalinba meel kala hadlaya maalintuu dhageysto ama saacaduu dhageysto meediyahan waa is yaqaanaahe waxaan dhihi lahay apologiesna ha ka bixiyo odayaashii geedaha uu geliyeyna ha ka soo bixiyo taasaan idin leeyahay taas waa mid gaara aan kala hadlayo shakhsiyaadka hadda aan ka soo tagnay qaarkood aadaa u mahadsantihiin waa tuhunsannahay waana soo bixinaa ilaa dowladda federaalka waa u bandhigeynaa hadduu ilaahay awoodda la ogolaado. Khaalid Maxamed Ismaaciil Kacase telefishinka caalamiga Somali News degmada Maxaas bariga gobolka Hiiraan.